مستشار عوين مقالة عرقابو مدة 4 بلون ay ka socdeen dhismayaal isla markaasina ay ka fulinaysay hay'adda khayriga ee qarni Afriqiya ayaa waxa soo gabagaboobay qaybtii hore ee dhismahaasi waxaana munaasabad kooban ay ka soo qayb galeen saraakiil ka socota hay'adda qarni Afriqiya maayirka degmada Cergaabo barasaabka gobolka Sanaag iyo xubno kale ka qabsoontay dhismaha mustashar cawin ee magaalada Cergaabo waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda qarni Afriqiya ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Maxamed Axmed Cabdullah halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha guud ee hay'adda qarni Afriqiya Sheekh Maxamed Ali Geedi marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa hay'addii soo maalgelisay jaamacan magaalada Cergaabo oo runtii mashruucii ugu weynaa ee hay'adda qarni Afriqiya ka fulisay Soomaaliland alxamdulillah shaqadaas oo 4 bilood socotay turtaba maanta waxay maraysaa marxalad aad u wanaagsan maadaama oo la shubayo shubkii koowaad ama dabaqii koowaad maalintii ugu horeysay aanu duminaynay aan dadka u sheegnay way ku adkay dadka masaajidkii intii la ka in dib la dumiyo laakiin saaka waxaan u maleeyaa Cergaabo saaka mabsuud ba ka tiimaan u maleynaya ducada saaka waa badantay ilaahay ma hadii weeye waxaan rajaynayaa 6 bilood ka bacdi inaynu masaajidka furno masaajidku wuxuu noqon doonaa mashruuc ugu weynaa ee laga sameeyay gobolkan laga sameeyay buu noqon doonaa masaajidku wuxuu qaadi doonaa 3,000 iyo dheeraad qof buu qaadi doonaa madrasadii baa la socota waxa kale oo la socda in meheradihii loo sameeyay masaajidka la socda waxa la socda gurigii imaamka la socda gurigii muadinka la socda mashruuc runtii aad u weyn weeye ilaahay waxaan ka baryaa inuu ku anfaco magaalada Cergaabo iyo dadkeeda ku anfaco waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Cergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faray oo hay'adda qarni Afriqiya ku bogaadiyay shaqada ay ka wado mustashar cawin ee magaalada Cergaabo Sheekh Maxamed Ali Geedi oo ilaahay u sakhiray gobolkan Cergaabo ama Sanaag ama degmada Cergaabo oo wax badan sidii hay'addiisa khayriga ah qarni Afriqi ay ka qabteen ma mashruucan masaajidka kaliya inta socota mashaariic badan baa ka socota dadka gashaday maalka meesha inta laga aragtaan oo sheekhu inoo sheegay uu yiri magacayga waxba sheegina ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu dambigiisa ku dhaafo shirkar fardowsana uu geliyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa bilowgiisii waynu joognay dhamaadkiisana inuu na gaarsiiyo inuu masaajidka awoodiisa inoogu keeno isla yeeminkana meeshu maraya waa ogsoontihiin waxaan u mahadnaqayaa muxsinkii keenay ee ina siiyey ee inagu caawiyey ee magaciisa qariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay ilaahay miisaadkiisa xasanaadka ha ugu daro sharadda farduusul aclaan allah geeyo waxaan runtii u mahad celinayaa oo isaguna Sheekh Maxamed Ali Geedi oo barnaamijkan mashruuca masaajidka inoo soo qaaday inoona soo fududeeyay baan u mahadnaqay waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran jazaa masaajidkii waa aragtaan ilaahay baa markii horena inoo fududeeyay iminkana inoo fududeeyay insha allahu tacaala waynu aragnaa in uu yahay masaajid weyn madrasaadkii leh beheradihii ganacsiga isaga lagu wadayay leh barkhad maxamuud geedi telefishinka caalamiga ee Soomaaliya TV magaalada Cergaabo